wasaaradda maaliyadda ee Somaliland ayaa waxa ay dardar gelinaysaa oo ay bilowday canshuuraha wadamarista gaadiidka ee dhinaca iyo Somaliland. Maxamed Faarax Coomade ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Hargeysa. wasaaradda maaliyadda ee Somaliland ayaa bilowday qorshe ay ku dardar gelinayso canshuurta wadamarista gaadiidka kaasi oo markii hore gaadiidka laga qaadi jiray 6 biloodba hal mar hadda se laga dhigay 3 biloodba hal mar iyadoo sidoo kalena dhawaan xeerka takaaliifta horumarinta wadooyinka ee Somaliland oo ay golaha wakiiladu meel mariyeen uu ku kordhiyay canshuurahaasi laga qaadi jiray gaadiidka lacag. wasiir dawlaha wasaaradda maaliyadda ee Somaliland Cusmaan Cabdilaahi Saxardiid iyo agaasimaha maaliyadda ayaa kormeer ku maray xarumaha maaliyadda ay ku leedahay magaalada Hargeysa gaar ahaan waaxaha canshuuraha bariga iyo kastamka dhexe ee wasaaradda maaliyadda ee magaalada Hargeysa halkaas oo ay ka socotay olole ballaaran oo ay shaqaalaha canshuuraha bariga iyo ciidanka ilaalada nabadgelyada wadooyinku ay ka wadeen goobahaasi waxaana sidoo kale halkaasi kula hadlay shaqaalihii halkaasi hawshaasi ka waday wasiir dawlaha wasaaradda maaliyadda ee Somaliland Cusmaan Cabdilaahi Saxardiid si ay u dardargeliyaan hawlaha ay halkaasi ka wadeen soo dejinta iyo dhoofinta hay'adaha waxaan ku dhahdaa iyo warshadaha leydka iyo wixii maxaan la mid ah ololahan wuxuu ka bilaabmayaa Marwada Jeex Boorame Gabiley Berbera Sheekh Burco Oodweyne dul badan man ku olin Caynaba Ergaabo maxaan ku dhahaa qaranka jamhuuriyadda Somaliland laascaanood meel kasta ayuu maxaan ku dhahaa ka bilaabmaya waa cashuuraha bariga aan maxaan ku dhahdaa aynu qaadayno waxaan idinkula dardaarmayaa ama aan ka codsanaynaa idinkoo hawl weyn qaranka u haya 3 bilood ololahan dhowrka cisho socon doona 15 cisho ayuu soconayaa 15 ka cisho waxaanu doonaynaa sanadkii dhamaadkiisii ayaa lagu jiraa ilaahayna hayda la qabto waxaad karti leedihiin iyo xirfad iyo tababar waxaanu doonaynaa in cashuurahaas ay ku soo xaroodaan shaqaalaha iyagana waanu la hadalay aad iyo aad ayaan maxaan ku dhahdaa aan ilaahay uga baryayaa inuu idin fududeeyo khayr baan idinku farayaa de shaqo wanaagsan. Maxamed Faarax Coomade Somali Channel Hargeysa. wasaaradda maaliyadda ee Somaliland ayaa waxa ay dardar gelinaysaa oo ay bilowday canshuuraha wadamarista gaadiidka ee dhinaca iyo Somaliland. Maxamed Faarax Coomade ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Hargeysa. wasaaradda maaliyadda ee Somaliland ayaa bilowday qorshe ay ku dardar gelinayso canshuurta wadamarista gaadiidka kaasi oo markii hore gaadiidka laga qaadi jiray 6 biloodba hal mar hadda se laga dhigay 3 biloodba hal mar iyadoo sidoo kalena dhawaan xeerka takaaliifta horumarinta wadooyinka ee Somaliland oo ay golaha wakiiladu meel mariyeen uu ku kordhiyay canshuurahaasi laga qaadi jiray gaadiidka lacag. wasiir dawlaha wasaaradda maaliyadda ee Somaliland Cusmaan Cabdilaahi Saxardiid iyo agaasimaha maaliyadda ayaa kormeer ku maray xarumaha maaliyadda ay ku leedahay magaalada Hargeysa gaar ahaan waaxaha canshuuraha bariga iyo kastamka dhexe ee wasaaradda maaliyadda ee magaalada Hargeysa halkaas oo ay ka socotay olole ballaaran oo ay shaqaalaha canshuuraha bariga iyo ciidanka ilaalada nabadgelyada wadooyinku ay ka wadeen goobahaasi